runtii sida la socotaan saaka waxaa looga dareeray codbixin golayaasha deegaanka 30 degmo oo ka tirsan 7 gobol oo ka mid ah Puntland runtii si wanaagsan oo habsami leh ay hawshaas u socotaa ciidamaduna waxay la wareegeen goobaha seejooyinka 48 saac ka hor ayay la wareegeen amnigooda goobaha seejooyinka ee laga codbixinayo taas waa mid laba ciidamada waxay gacanta ku hayaan amniga guud ee doorashooyinka iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ee u jilicsan nugul gudanayana waajibaadkooda dastuuriga ah inay garab istaagaan lambar 3 runtii waxa runtii aad iyo aad ilaahay mahadiisa si habsami leh oo wanaagsan oo guud ahaan oo wada shaqayn leh ayaa ka muuqata shacab weynaha guud ahaan iyo ciidamada guddiga doorashooyinka xarumaha hogaaminta guud ee amniga doorashooyinka intaas oo dhan isku xiran wax dhibaato iyo wax caqabado ka socota ka soo kordhay ama ka timi midna ma jirto waxay ku socotaa si wanaagsan oo sharaf leh ay ku socotaa iyo si loogu talagalay jadwalka iyo qorshaha loo dhigay dadkuna runtii aad iyo aad bay u soo dhaweynayaan ugu kalsoon yihiin hanaankooda iyo nidaamkooda ay dimuqraadiga ay ku gudanayaan waajibaadkooda dastuuriga ciidamada gacan bay ku siinayaan guud ahaan ciidamo kala duwan oo dawladda ayaa guud ahaan amniga gacanta ku haya hadayna booliiska hadayna ciidanka badda ciidanka guud ahaan oo dhan ciidanku waajibaadkeeda ay gudanayaan arrimahaas ay u socdaan wax caqabada iyo wax dhibaato jiraan ma jiraan waxaan kaloo runtii halkan rabaa inaan uga faa'iideysto nidaamka quruxda badan ee shacabka ayaan waxaan ku dhiirigelinayaa muddada inta hadhay sida ay ku bilaabatay si qurux badan bay 6 aroornimo ku bilaabatay waxaan ilaahay ka rajaynayaa sida ay si ka wanaagsan wada shaqaynta iyo hanaanka waafaqsan inay ku dhameystiraan saacadaha iyo waqtiga haray waxaan ilaahay uga mahad celinayaa ilaah noo hirgeliyay oo noo maxaan ku raahday noo hirgeliyay inaan arintan aanu ka faa'iideysano oo waajibaadkeeda ku gudano dastuuriga iyadana waxaan ilaahay ba mahad iska leh guud ahaan waxaan halkan kaga faa'iideysanayaa uga mahad celinayaa inta hawsha daadihinaysa ciidamada ugu horeeyaan maxaan ku raahday guddiga doorashooyinka Tibek warbaahinta oo iyaduna ah lafdhabarta hawsha iyaduna ku hawlan guud ahaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenka iyo ciidamada guud ahaan hawsha sida weyn gacanta ugu haya ee ku hawlan maanta ku suntan hawsha kamera dhalinteedana halkan waxaan baan ugu soo gudbinayaa guud ahaan ilaahay mahadii waxaan ka baryaynaa inuu inoogu dhameystiro si sharaf leh amni leh wanaagsan oo isxilqaan iyo sharaf ka muuqato ilaahay baan ka baryaynaa sida noogu hirgeliyay nooguna dhameystiro